Isku darka qaxwada iyo antibiyootiga waxa uu noqon karaa fikrad xun. Daraasad ayaa muujisay. Koob qaxwo ah oo la cabo maalin kasta waxa uu wiiqi karaa saameynta daaweynta qaar ka mid ah antibiyootiga, sida ay muujisay daraasad cusub oo falanqaynaysa sida bakteeriyada Escherichia coli ee coli uga jawaabta kafeynta. Haddii aad rabto warbixintan oo kale fadlan guji sabskraibsi. Aad u hesho warbixina intaan ka badan ha iloobin inaad nagu soo biirto. Mahadsani. Koox caalami ah oo cilmi baarayaal ah oo ka dambaysay daraasadan ayaa eegay 9 walxood oo kiimiko ah iyo sida ay u bedeleen ee coli, gaar ahaan sida ay u saameeyeen nidaamyada xakameeya waxa galaa iyo waxa ka soo baxa unugyada bakteeriyada. Qiyaastii 3 meelood meel walxaha la baaray ayaa la ogaaday in ay farageliyaan hawlaha hidde-sidaha ee la xiriira maaraynta dhaqdhaqaaqa unuga. Laakiin kafeyntu waxay ahayd tan si cad uga dhex muuqatay. Waxay sababtay in ee coli ay nuugto heer hoose oo antibiyootigyo ah oo ay ku jiraan ibuprofen. Xogtayadu waxay muujinaysaa in walxo badan ay si qarsoodi ah laakiin nidaamsan u saameyn karaan habraacyada hidde-sidaha ee bakteeriyada, ayuu yiri cilmi nafsiga bakteeriyada Christoph Bensfeld oo ka tirsan jaamacadda Wurzburg ee Jarmalka. Tani waa qayb ka mid ah cilmi baaris socda oo ku saabsan waxa loo yaqaan iska caabinta antibiyootiga heer hoose. Tani ma aha nooca caadiga ah ee iska caabinta, halkaas oo bakteeriyadu si toos ah uga hortagaan daaweynta lagu beegsanayo, balse waa saameyn ka dhashay isbeddelka habka ay hidde-siduhu u shaqeeyaan iyo sida jeermisyadani ugu falceliyaan deegaanka ay ku jiraan. Hore ayaan u ognahay in bakteeriyada sida ee coli ay isticmaalaan jawaabahan la qabsiga ah si ay u kordhiyaan fursadaha ay ugu badbaadi karaan deegaanka ay ku sugan yihiin. Waxa aan weli la garanayn waa hababka saxda ah ee jirka ku jira ee ay isticmaalayaan, taas oo caawin karta saynisyahanada inay fahmaan sida jeermisyadu u sii noolaadaan iyo sida aan ugu adkaan karno. Cilmi baarayaashu waxay arkeen farqi ku yimid jawaabta bakteeriyada ee antibiyootiga kadib marka ay la xiriirto kafeynta. Falanqayntu waxay muujisay in borotiin gaar ah oo la yidhaahdo roob uu door ka weyn ka ciyaaray sidii hore loo moodayey, gaar ahaan xakamaynta waxa galaa ama ka baxa unugyada bakteeriyada. Waxa uu ku lug lahaa qiyaastii 3 meelood meel isbedelada la arkay oo ay ku jiraan kuwii ay kirisay kafeyntu. Kafeyntu waxay kirisaa silsilad dhacdooyin ah oo ka bilaabata xakameeyaha hidde-sidaha roob kuna dhammaata isbeddelka borotiinada qaada ee badan ee coli, taas oo markaa keenta in antibiyootigyada sida ibuprofen si hoose loo nuugo, ayay tiri injineerka bayolojiga Anna Rita Brodhado oo ka tirsan jaamacadda Tübingen ee Jarmalka. Waxaa muhiim ah in la ogaado in cilmi baaristan lagu sameeyey tijaabooyin shaybaar ah, weli si buuxda looma oga sida ay uga shaqayn karto dadka ama inta koob oo qaxwo ah oo la cabo ay dhab ahaantii saameyn ku yeelan karto jawaabta antibiyootiga. Laakiin waa arrin cilmi baaris mustaqbalka lagu sii eegi karo. Cilmi baarayaashu waxay sidoo kale ogaadeen in saameynta daciifinta antibiyootiga aysan ka muuqan bakteeriyada kale ee waxyeellada leh ee la yidhaahdo Salmonella enterica oo si dhow ula xiriirta ee coli. Tani waxay u muuqataa jawaab gaar ah oo ku saysan noocyo bakteeriyo ah oo keliya. Waxaa jira siyaabo dhowr ah oo cilmi baaristan loo sii horumarin karo si loo helo faham sax ah oo dheeraad ah oo ku saabsan waxa halkan ka socda, laakiin fahamka qoto dheer ee iska caabinta antibiyootiga heer hoose ayaa lama huraan u ah in daaweyntu noqoto mid ugu waxtar badan. Marka la eego natiijooyinkan, waxaan saadaalinaynaa shaqo adag balse lama huraan ah oo muhiim u ah in si buuxda loo sawiro waxyaabaha muhiimka ah ee xukuma shaqooyinka gaadiidka ee noocyada kala duwan ee bakteeriyada, ayay cilmi baarayaashu ku qoreen warqadooda la daabacay. Cilmi baaristan waxaa lagu daabacay PLOS Biology. Kowgu qoray